أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله walaalayaal waxaan ku soo jirnay kitaabkeeni mawlidka rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iyo iftirihii uu ku been abuurtay ninkii la dhihi jiray Shibli ama Khaytul Baadil la dhihi jiray. Khaytul Baadil ama Shibli luga dheere Maxamuud Shibli luga dheere waxay ahayd rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam calaytan oo la calaytamahayo iyo nacayb quluubtiisa iyo jidhkiisaba dhammaystiray oo buux dhaafiyey nacaybka rasuulullaahi Muhammad uu u qabo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Marka maanta waa cashirkeennii toddobaad oo waxa weeyaan iyo cabirteennii toddobaad bay inoo noqonaysaa. In badan oo ka midana waynu soo aqrisanay oo waynu aragnay in uu waafaqsan yahay dhammaan kitaabku horeyna aan usoo sheegay kitaabka Ilaahay iyo xadiidka saxiixa ee rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kitaabkuna uu yahay siira saxiix ah oo dhammaystiran. عطر ودق اللهم الله يو قبره قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبره الكريم ونكسنا بعرف الليل إله كود قل داسو شدي فافيسه ومن صلاة وتسليم النبت قلية كأهاتي وأرضعته وحان نوجسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمه آمنة بنت وهب أياه نوجسي سلام الله عليها أياما أيي نوجسي وهذه الأيام كانت 7 أيام أو 9 بأهايين أيامهasi waxay ahaayeen 7 maalmood ama 9 maalmood bay ahayd. ثم أرضعته waxaan nuujisay ثويبة الأسلمية ayaan nuujisay radiyallahu anha المنسوبة إلى أسلم من قبيلة waxa weeyaan إلى أسلم waa qabiilة من اليمن qabiilo reer Yemen ka ahaatay oo reer Yemen ah weeyaan. التي taasoo actaqaha uu xoreeyay Abu Lahab uu xoreeyay. Abu Lahab magaciisa dhabta waxa la dhihi jiray Abdul Uzza wa Abu Lahab baa la dhihi jiray oo ka isaga wuxuu u ahaa magaca Abu Lahab la yiraahdo mashcarun oo bidammi abu u ahaa ay ayaa loo nisbeeyay oo ayb u ahaa arrinka isaga. xiina waqtigiina uu xoreeyay waafathu ay u waftiyeysay ay atad ay u timid oo Abu Lahab ay u timid cinda miilaadihi la dhalidiisa agteeda ay u timid ay bacda wilaadatihi alayhi salatu wassalaam ahay ببشراهنا أي أتمد بشارين تيسا أو إستغى أي بشارين يزو إن لقليه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي ببشارتها أو إياه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أبا لهب أي أو بشارين يسو إلى ذهي ولالك وحال الله علي ويل أي الله علي ويا أبو لهب موسى أهين شقيقي أبونا عبد الله سلام الله عليه مؤوسا أهين سدا إيدا فأرضعته مركاسي وحان نوجسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبرداسي نبي صلى الله عليه وآله وسلم أي نوجسي مالمها إيضا أبين نوجسي بين النور وأرنت صحيحة أحاديث تسحر أكو تمد نبتأ واسدا إيضا هذا هو وحال لي أبو لهب مركا إيضا إلهي وحكفو ذيابا لي رسول الله محمد أعدادي سأيو أهائه naarta ayuu ilaahay ka fududeeyaa maalinta isniinta ah. waxaana ku yimid xadiid saxiix oo arrinka isaga ah sugayso. shicir baa wuxuu ahaa idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu bil jahim mukhalladan ata annahu fi yawm al ithnain da'iman yukhaffifu anhu lis sururi bi ahmada fama dhannu bil abd alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. waxaan si toos isku raacinaynaa Abu Lahab iyo ninkii la dhihi jiray Abu Jahl iyo kooxahan rasuulullaahi Muhammad la colaytamo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ee loo yaqaano jamaacatul wahabiyya ama jamaacatul maariqa loo yaqaano kuwaasoo rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uu uga saaray shariicadiisa islaamka ah si toos ah. haddaba wuxuu yiri shicirkani idha kana hadha kafiran haddii uu ka isaga gaal u ahaaday oo jaa dambu aydiisu ay timid quraanka dhaxdiisa ay ku timid oo watabad yadahu fil jahim mukhalladan
labadiisa gacmood iyo isaguba inuu naar ku waarahayo jaxiimo ku waarahayo oo weligii uu ku jirahayo uu cadeeyo quraanka kariimka ataa annahu fi yawm al-ithnayn daa'iman maalinka isniinta ana xadiidku uu ku yimid in laga fududaynhayo naarta yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada فرحي ورسول الله محمد كفر حي صلى الله عليه وآله وسلم درت أن النار لوغا فضودين يو ويمد خبرك وحكو يمد ماني والبغو سنينا النار لوغا فضودين يو أرنكا إساقا فرحي وكفر حي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم درت فما الذن ملوه محو يهي ملوه محو يهي وحويا وملها لجيدها يوحويو dhanigaagu cabdigu addoonkiisa muxuu yahay fama dannu bilcabdi muxuu yahay malaha addoonka alladii kaasoo tuula cimrigiisa inta uu jiray biaxmeda masruuran wamaata muwaxidan rasuulullaahi maxamed ku faraxsanaa mawlidkiisana dhigahayay isaga oo waxa weeyo midkaa isaga ahe qofkaa isaga ah muwaxid ah oo rasuulullaahi maxamed ilaahay rumaysan oo ilaahay waxidahayo rasuulullaahi maxamedna risaaladiisa qirsan iyo nebinimadiisa qirsanna adduunyada uu ka tegay maxay tahay fardacatu way nuujisay gabadha iyada ah ayaaman maalmo ayay nuujisay oo aad iyo aad u yar maca ibnihaa inankeedii maciisa masruuxin ee la dhihi jiray masruux inankeedii la dhihi jiray iyo rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam ayay nuujisay وأبا سلمة نينك أبا سلمة اللي يراهدنا وين نوجسي أبو سلمة مجيء سدبته وحويه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أرضعته وين نوجسي وبعد إرضاعها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أي نوجسي نينك إسقى أم سلمة وحويه عنق إسقى ودلي أيا الله كن يوضي مجيء عيسى أو إسكالها زوجتي سنة وحق جورسدي بعد مركو دجال كي وحق كشهيدي بعد جد رسول الله محمد أيا جورسدي صلى الله عليه وآله وسلم gabadha iyadoo ummu salama ana waxay ahayd radiyallahu anha aakhiru ummahatil mu'miniin ayay ahayd hooyooyinkii mu'miniinta gabadhii ugu dambeysay ayay ahayd waxaana la oofsaday fi imaarati yaziid ibn muawiya alayhi la'inullah waqtigiisii ninkii yaziid ahaa ee waxa weeyaan laciinka ahlu bayt rasuulillahi aad iyo aad u gumaaday iyo saxaabadii rasuulullaahi muxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam koodii sidiiqiinta ahaa ninkii gumaaday waqtigiisii ayaa la oofsaday وهي قبلنا إيده ثويبا اللي يلاهدو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفية بي أهيد من آد يآد جعل أي أهيد وأرضعت وين نوجسي ثويبا قبلنا اللي يلاهدو قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عمه أديرك أي نوجسي حمزة أهاتي وحونا أديرك حمزة اللي يلاهدو مد النبي كون صلى الله عليه وآله وسلم لبسنا أي كون الذي كسو حمدا لما هديي في نصرة الدين دينتا وقرقاري ديدا سراه عمل كيسا ولا يمد إلى لوجا مجعابه أسد الله الغالب بالذي هجري أما وحوي مجع إسقى إمام علينا وإسكالها يسوون وحوها أسد الله أيها لا سونا قولها مجعس وأسد الله بالذي هجري وكان وحوها عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام وحوها نبي وكان وحوها عليه سيدوش ساعة والصلاة والسلام النبي قليه يبعث كيدرو إليها قبرنا إيادة ثويبة الأسلمية اللي يراها من المدينة مقالة المدينة اللي يراها أي يكدر يجري إلى مكة مكة انتي كأه بصلة عطياء يؤدر يجري إيا وكسوة بؤدر يجري لر وهي إياد بها كسوة إيادة ثويبة الأسلمية حرية أولاء أي كتهي إلى أن أورد انت وكأروري هيكلها إيادة هيكل كيد وحويان جد كيد وحويان وكغسو أرورو روائد المنون جيرده وحويو جيرده حديده إذا أنت أي كجسوا أروران وحويو الطريحة قبلنا إياه الطريح هذا أنت أو كجسوا أرورو أو ووراه وككوب جيرده أي قبلنا وصدا وحريريو أو دلبة نفط وكقاعدة ملجويو قيل وحال اللي قبلنا إذا ثويبة الأسلمية اللي جراهدو ماتت ويد متي وصدا ورك أوله مكتهي على دين قومها قوم كذا دينتيسي أي كل متي على قوم وحي كل متي قيل وحال اللي على دين قومها أي هاتي الفئة أي الجماعة اللون نسبية الجاهلية جاهلية اللون نسبية أي الجماعة باللون نسبية جماعة الجاهلية جاهلية هي لكن أرهنك إسقى واقيل وحسوا معها قبلني وإسلامتي إسلام ما أي نقول على كل متي إسلام ما أي كل متي وقيل وحال لي أسلمت وي إسلامتي أي أثبت وحاسوي الخلافة خلاف كإسقى وحاسوي
oo waxakaahu xikaayooday khilaafka isaga ah in uu arrintaa iyada ah ay jirto waxaa sugay oo xikaayooday a'immo waaweyn oo min a'immatil islaam ka mida ayaa xikaayooday laakiin waa qowl laga raajicsan yahay qiila waxaa la yidhi gabadha iyada qiila waxaa la yidhi calaa diini qowmiha ayay ahaatay alfi'ati ee jamaacada loo nisbeeyey aljaahiliyati ee jaahiligahi waqiila waxaa la yidhi aslamat way islaamtay ay ahbata alkhilaafa ay ahbata waxaa sugay alkhilaafa khilaafkaasi waxaa sugay ibnu mundah ninkaa la yidhaahdo oo imaam weyna ayaa sugay waxakaahu waana xikaayooday arrinkaa isaga arrinkaasi ayuu xikaayooday uma ardacatu waxaa nuujisay calayhi nabiga dushiisa ha ahaato asalaatu salaad iyo wasalaamu salaam alfataatu gabadhii ayaa nuujisay waxa weeyo xaliimatu la dhihi jiray xaliimadii asacdiyatu ay almansuubati ilaa sacad ibnu bakrin baa loo nisbeeyey ninkaa la yidhaahdo wahuwa aljaddu taasic weeyo oo ajdaadeeda ka mid a wa kaana shanu wuxuu ahaa qad radda kii uu radiyey kullun ku la arko oo min alqowmi qoomkii ah qoomkii ay nuugidda ka dalbaysay oo waxa weeye ilmaha inay u nuujiso ay doonaysay mid walboo ka mida wuu radiyey wa kaana shanu wuxuu ahaa qad radda kii uu radiyey kullun ku la arko min alqowmi qoomkii ka mida thadyahaa buu radiyey lifaqriha faqrigeeda liajli faqrihaa buuna u radiyey faqrigeeda darteed wa abaahu waana diiday fa aqsaba cayshuhaa nolosheedii ayaa qiib noqotay gabadha iyada ah bacdal waxaa weeyaan maxd shiddo bacdigeed nolosheedii ayaa qiib noqotay oo wanaagsanaatay ilan ilaahay wuxuu kusoo hagaajiyey makhluuqa kii u khayr badanaa waxaa weeyaan qabla alcayshati waxaa weeyaan ay qabla dukhuuli lleyl habeenkii gelitaankiisa ka hor ay rasuulullahi maxamed qaadaysa sala allahu calayhi waalihi wasalam waradda hadyuha wuxuu radiyey hadyigeedu wuxuu radiyey hay wadara waxaa dararay ay imtala-a waxaa buuxsamay dheh hadyuhaa naaskeedii ayaa buuxsamay bidurri darrin macnaha waxa weeyaan jawhar caano ah ayuu ka buuxsamay oo waxa weeyaan tif noqday ay albanahu waxaa caano siiyey nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam albanahu waxaa caano siiyey alyamiinu ay saqaahu waxaa waraabiyey nabigu athadyu alyamiin naaskii midigta ah ayaa waraabiyey oo minhumaa hooyadeen xaliimo labadeeda naas ka mid a ayaa waraabiyey nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo uu nuugay wey wa albana alaakharu kii kalena wuxuu caano siiyey waa naaskii kale ah wuxuu caano siiyey akhaahu walaalkii oo min alridaacati nuugmada kula walaal ahaa iyadoo ay dhashay ismuhu damurata ayaa la dhihi jiray damura la dhihi jiray baa la yidhi waqiila waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu xarthim cabdullaahi ibnu xarthi baa la dhihi jiray laakiin sidaa saxda ahee sugan waxa weeyo waxaa la dhihi jiray nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam walaalkiisa naaska kula walaalaha ahaa oo ay dhashay umuna xaliimata sacdiya radia allahu canha waxaa la dhihi jiray damura ayaa la dhihi jiray waa sidaa iyada وأصبحت وي وبريستي بمعنى أي صارت وحي أهاتي حليمة قبل الذي جري بعد الهزال ويد بعد إيا والفقر فقر بعد غنية بأهاتي من غنيته وحويا إيا غني أي أهاتي وسمنت وحى معناها إيا أو عي شيء وصفي عن الشارف الناقة هشي أي عي شيء ولديها إيا أكتها هذه عندها وشياه ريهنا وي يجونا وحويه وي عيلان أو وي دررين ولديها إيذا أكتر هذا وأنجاب أي انكشفت وحيا فيدنتي عن جانبها إيذا جانب كذا أكتر وحا فيدمي كل ملمة وانكشفت بمعنى وانجاب وحا فيدمي عن جانبها إيذا جانب كذا أكتيس كل ملمة شدة كل جيد أي مصيبة أو نازلة دقيس أو من النوازل الدنيا ذا أكتر كم ذا هاي أو الدنيا ذا أو إذا أكتر ذا أها مصيبة والدنيا ذا حاجة ذا كإيمان يسوع إذا أكتر ذا أها أي وحاويا فيدنتي إيه ورزية أي مصيبة كل جد أي فيدنتو إذا أكتر ذا أها وطرز السعد لبانك وحوط الله علي برد عيشها نولش هذا معويست هذا الهني بوجاكسي اللون سبيعي وواشاه أي جعل البركة بركتنا وحويا لي بمعنى بركة لعيشها نولش هذا أي بركتنا أي كحس الشيء أو يمدوي بركة أردنا وأويم وواشاه بمعنى وحويان وكحاكوبي أو أحسلي نولل وناكسن أردن والدنيا هي آخرة بقى أي أحسلي عدرود اللهم الله يو قبره قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الكريم وناكسنا
bicarfin laydh ilaahu ku udgi laydhaasoo shadiyin faafayso oo min salaatin salaad iyo watasliimin nabadgeliyo ka ahaatay darsigeennii maanta toddobaadna halka iyada ayuu inoogu joogahayaa